shirkadda biyaha Mahigaan ee degmada Burtile ayaa guddiga horumarinta iyo dhismaha laamiga magaalada Burtile waxa ay ku wareejisay deeq lacageed oo ah $5,000. Deeqdan lacageed ayaa waxa ay qayb ka ahayd qoondooyinkii ay shirkadaha ku qorteen guddiga dhismaha laamiga gudaha magaalada Burtile. waxaana markii ugu horeysay ka soo jawaabay shirkadda biyaha ee Mahigaan Burtile. maamulaha shirkadda biyaha ee Mahigaan Muxuudiin Maxamed Xaashi iyo gudoomiyaha guud ee kambaniga Mahigaan Burtile Nabadoon Cabdikaafi Kuukay ayaa waxa ay ka warbixiyeen deeqdan lacageed iyagoona si rasmi ah ugu wareejiyay guddiga horumarinta iyo dhismaha laamiga gudaha magaalada Burtile. munaasabadan qaaliga oo maanta aan taaganahay waa munaasabad ay isugu yeertay shirkadda biyaha ee Mahigaan dadweynaha iyo ganacsatada iyo waxgaradka reer Burtile taasoo ay ku gudbinayso contribution-keedii ay kaga qayb qaadan lahayd dhismaha wadada laamiga ee dhexmarta magaalada Burtile. contribution-kaasoo runtii aan ahayn mid aad u tiro badan, shirkadduna ay tahay shirkad bilow ah oo shaqadeedu aan filaya inay wax ka yar 3 bilood ama 4 bilood ay shaqaynaysay. yacni waxaa weeyaan wixii looga baahnaa oo shirkad looga baahnaa hadde waa la garanayaa inay qayb weyn ama kilomitir iyo wax la mid ah qaatay ahayd. shirkadaha kalena waxaan ka rajaynaynaa sidaas oo kale inay maaragtay kuwa gaamuray ay qaybtooda qaataan insha Allah, laakiin annagu ka shirkad ahaan Mahigaan ahaan waxaanu saaka doonaynaa inaanu guddiga horumarinta iyo dhismaha laamiga degmada Burtile ku wareejino adduun lacageed oo gaaraya $5,000. Raxmaan raxiim kambaniga Mahigaan ahaan waxaanu si rasmi ah u wareejinay lacagtii contribution-ka ahayd oo ay shirkadda Mahigaan ugu deeqday dhismaha jidka laamiga ee dhexmara magaalada Burtile. waxaan ku wareejinay guddiga horumarinta degmada Burtile. lacagtaas waxaan rabnaa inaan ku wareejino guddiga horumarinta iyo gudoomiyahooda odayaasha deegaanka nabadoonnada biliiska ragga akhyaarta halkan jooga dhammaantood inay goobjood ka ahaadaan inay shirkaddu qoondadeedii lacageed ee loogu talagalay inay kaga qayb qaato mashruuca horumarinta degmada oo dhan $5,000 inaanu si official u wareejino. gudoomiyaha guddiga horumarinta degmada Burtile Cabdullaahi Khaliif ayaa waxa uu shirkadda biyaha ee Mahigaan uga mahadceliyay si degdeg ah ay uga soo jawaabeen dhismaha iyo horumarinta laamiga gudaha magaalada Burtile, isagoona shirkadaha kale ganacsatada iyo waliba qurba joogta Soomaaliyeed ugu baaqay in sidaas oo kale ay uga soo qayb qaataan dhismaha laamiga gudaha magaalada Burtile. maanta waa maalin anaga guddi ahaan farxad badan noo ah, sababtoo ah waxa weeye waa shirkaddii ugu horeysay oo codsiga ka soo jawaabta. waxaan leenahay shirkadda Mahigaan ilaahay wax khayr qaba ha ugu bedelo lacagta 5,000 oo aan ku calayimanay annagoo ku talagalayna inay tahay shirkad 3 bilood shaqaynaysay. waxaan ugu talagalnay inay 5,000 ay noogu deeqdo. ilaahay mahadi iyo isxilqaan badan oo ayagu ay sameeyeen waxaan noo suura gashay inay lacagtii saaka nagu wareejiyay 5,000 ahayd waanu kala wareegnay. waxaanu leenahay ilaahay meesha ka soo baxsheen ilaahay barakaha u geliyo, waxa khayr qabana ilaahay ha ugu bedelo. Mahigaan ay sameysay oo kale ay noo soo hormareen insha Allah saasan ka jira iyo dhammaan jaaliyadaha dibadda jira iyo kuwa ganacsatada oo dalka jooga iyo qaybaha kala duwan oo dhan oo Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland gaar ahaan Burtile. waxaanu leenahay meel aad joogtaan arrinta ka soo qayb gala. ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Burtile Maxamed Maxamuud Axmed Buurdibi ayaa shirkadda biyaha ee Mahigaan uga mahadceliyay maadaama ay awal hore uga qabtirtay reer Burtile biyihii maantana ay qayb weyn ka qaadatay horumarinta laamiga gudaha magaalada Burtile. mas'uuliyiinta kambaniga Mahigaan meesha aad ka soo saareen wax khayr qara Allah idinku bedelo. wax badan baad Burtile ka farxiseen oo biyo muddo laga qoostay aad keenteen, maantana waxaad ka qayb qaadateen lacagtii lagu horumarin lahaa wadada dhexdeeda. waa idinka mahadcelinaynaa. waxaan u mahadcelinayaa guddiga horumarinta degmada oo had iyo goor u taagan sidii ay u dhamaystiri lahaayeen ugana dhabayn lahaayeen riyadii aanu damacsanayn oo ahayd dhismaha laamigaas. saad u jeedaan waa rag wada mashquul ah. xalay 6 saac iyo bar laamiga taagnaayeen waxay la shaqaynayeen cagafta shaqada wadda isla markaas shir bay ka soo baxeen. waxaan rabnaa guud ahaan in loo duceeyo guddigaas in ilaahay shaqadan u fududeeyo ayagana ajir xasan Allah ka siiyo. waxaan u baaq u dirayaa shirkadaha magaalada ee lacagta guddigu ku qoray sida Mahigaan ay u casuntay bulshada reer Burtile iyo guddigu ee lacagta u baxsheen in ayagana u baxshaan. waana ka rajaynaynaa inay bixin doonaan insha Allah. waana ku sii adkaynaynaa aad iyo aad baad
waxaa weli si habsami leh u socda burburinta iyo dhismaha laamiga gudaha magaalada Buurtinle iyadoona ay ganacsatada qurba joogta iyo muxsiniinta Soomaaliyeed dhankooda ka doonayaan inay qayb weyn ka qaataan dhismaha horumarinta laamiga gudaha magaalada Buurtinle. Guuleysasid Jaamac, warbaahinta dawladda Puntland, Buurtinle.